awoodaha bini'aadamka kuma koobna kaliya xubnaha balse waxaa jira kuwa intaa ka badan oo Ilaah siiyay dadka waxayna yihiin kuwa qarsoon ama muuqda naafanimadu kama dhigna meel fadhiyo wax qabsi la'aan oo naafadu waxbay yaqaanaan sida dadka caadiga ah balse looma tixgeliyo aqoontooda oo waxaa laga soo qaadaa mid u dhantaalan sida waxyahooda sawir qaadnimadu waa xirfad laakiin barashadeedu ay ku xiran tahay ka go'naanshaha qofka baranaya maxamed xasan shaaciye waxa ku riixay inuu noqdo muuqaal qaade waa naafada Soomaaliyeed oo haysan cid u baahisa baahiyahooda gaarka ah sida soo bandhigista waxtarka ay u leeyihiin bulshada waxa ugu dhaliyay markii aan ka soo baxay xagga waxbarashada ee naafaan hadda wax ku soo bartay arrimaha naafada halkaas aan ka soo baxay iskuulaadkii jaamacadaha soo dhameeyay markii aan bulshada dhaxgalay meeshii aan isdhahay biya kale biya ka duwan aad geli doontaa waxaan la kulmay in aan soo galo biyaadii biya ka darneed aan wax ku soo baranay xaqaaqatan markaas waxaan go'aansaday in aan meel afadhiisanin naafanimada dadka meel ay dadku wax u saarayaan aan ahaan aan meel iska dhigo taa wax ku soo bartay wali aan ku jiro laakiin aan horumarin kale wixii barnaamij kale aan soo biyo dadka naafada aan matalana wax u qabto naafada Soomaaliyeed markaan waxay rumaysteen inay u kacaan baahinta waxay doonayaan iyo awoodaha qarsoon ay gaarka u leeyihiin iyagoo aaminay muhiimadda warbaahintu ay u leedahay adduunka inay dhinacooda uga faa'iideystaan meeshana ka saaraan in haddii ay yihiin kuwa lixaadka la aysan garaadka iyo hal abuurka la'ayn waxaan celinaynaa maxamed oo ah shakhsi dadka naafada ka tirsan in uu u istaagay talinta arinta naafada sidoo u marayo dhanka saxaafada shalayna waxa buug inuu ka qoray oo ka diyaariyay maantana waxa uu soo abaabulay ama uu soo diyaar gareeyay barnaamijkan ah in maqal iyo muuqaal lagu tabiyo dadka naafada dhibaatooyinkooda ee jirto nolosha waaqiciga ee bulshada ku dhaxaysa dadka qaybaheeda kala duwan dadka naafada waxay ka mid yihiin bulshada Soomaaliyeed wana qayb muhiim ah oo dadka ka mid ah dhabarkayga maxamed xasan shaaciye waxa uu ku guuray jiray shaqadiisa caadiga ah maxamed wuxuu go'aan qaatay kadib markuu arkay naafadu inaysan lahayn wax cod ah meelo badan ayuu tagay si uu uga tabiyo barnaamijyada gaarka ah ama duruufaha haysto naafada laakiin uma suurtagelin waayo inta badan dadku waxay aaminsan yihiin in naafadu aysan lahayn awoodo balse sida muuqata waxay leeyihiin awoodo qarsoon oo iyaga gudahooda ku jira taana waxay ka saacidaysaa in wax walba ay qabsan karaan iyaga laftirkooda ayaa go'aan ku qaatay inay soo bandhigaan bulshada la noosha waa kuwa saameyn ku yeesha habnololeedkaada marka ay si saameyntooda ugu daran tahay ayaa noqoto xilliga ay ku dareensiiyaan in dunidan aad ku nooshahay aadan qiimo ku lahayn waxna aadan ka qabsan karin iyagoo ujeedkoodu yahay in qof naafa ahi uusan noqon karin sawir qaade horta bulshada inta badan waa qof ku fahmayaan oo ku jiraan kuwa aan ku fahmin barnaamijkan macnihiisa wixiisa aan ku fahmin oo ka dhacsan way jiraan culeysada markii aad barnaamijkaada saaka aad soo qaadatid tripodkaada iyo kamerada aad soo qaadatid bajaaj aad soo raadid magaalada markaa soo aadayso kaleeto inaad tripodkii iyo wixii dhan isku qaadi karin inta badan laakiin saaxiiba ay saacido oo barnaamijyada waxa ay doodo laakiin markaa shakhsi aan ahay oon barnaamijkii aan kaliya wado waxa kugu noqonaa culeys markii ku qarbo ku leeyahay ayaa qaadis u baahan waxa wadid oo mar walba si wadid iska dhig ku leeyahay laakiin ma dareensana meesha aniga aan isleeyahay way gaari kartaa fariintaada oo wali ma ila dareemin ay qaarkood ila dareemay bulshada wanaagsan way jiraan oo aad weyn igula dareemay wadan kasta dadkiisa naafada ah waa sida u dhiirigeliyo ugana faa'iideysto caalamkan ku noolnahay waxa ku nool naafo badan oo galay diiwaanada taariikhda ee dalalkooda kadib dhiirigelin ay ka heleen dadkooda naafada adduunka marka la fiiriyo waxay ka yihiin qayb ayay ka yihiin taasna waxa saaciiday dalalka iyo dadkaas ay ka soo jeedaan oo ah kuwa aanan takoorin oo jaanis u siiyay in laga faa'iideysto kheyraadka iyo maskaxda Ilaahay dadkan siiyay badanana dadka naafada way ka fikir badan yihiin dadka kale wana ay ka hal abuur badan yihiin waa fi al abuurkaasna wuxuu miro dal noqon karaa marka ay timaado investment lagu sameeyo tayeen ama la maalgelin lagu sameeyo wana yartahay dalka Soomaaliya inay dhacdo in dadka naafada maartay barnaamijyadooda maalgelin lagu sameeyo awood kasta aad leedahay balse aad meel la fadhiso kuma gaarsiiyaan inaad ka meer dhaliso rajooyinka aad ku taamayso inaad gaarsiso naftaada balse ka go'naanshaha shaqadaada iyo inaad daacad u noqotaa waa mid dhalisa guusha uu jecel yahay gaaristeeda qof kastaahi maxamedna sawir qaadanimadiisa waa mid uu jecel yahay inuu uga mid noqdo kuwa ugu adeega naafada wuxuu yahay in aan soo saaro
dad naafa ah oo wax qabsan karo xaqiiqatan way jiraan dad naafa oo guuleystay iyo dad naafa wax qabsan kareeto laakiin warbaahinadii iyo dad kale ay iska indhasaabayaan waxaan hadafkiigu yahay in aan soo saaro dad naafa ah wax walba qabsan karo sida dadka kale caadiga u qabsan karo anigana aan ku soo ii naqato dhan kaleeto wax qabad iyo hay ii naqato bulshadiina aan ku baro dadka naafada micnaha dadka naafada yihiin inay dad caadi yihiin kaliya faquuqa lagu soo binayn ee gooni yeeshay marka naafadii guryaha ku jirta inaan soo saaro barnaamijyo ku suubsan guriyada ugu tago barnaamijyo ka soo suubiyo iyo waxqabadooda gulahooda iyo barnaamij ka sheekeynayo inaan u suubiyo bulshadiina aan u keeno barnaamij diyaarsan oo naafada ka hadlayo si ay u bartaan naafada ay isku bartaan bulshada iyo naafada isku dhaxgalaan naafada ayaa la kulanta takoor ah inaysan waxba qabsan karin halka iyagoo aqoon leh ay guryaha fadhiyaan kadib markaan lagu qiimeyn cilmigooda balse lagu qiimeeyay naafanimadooda taasna waxay keentay kala sooc ku yimaada inay kala milmaan naafada iyo dadka lixaadka leh maxamed ciise koona goobjoog muqdisho.